bani aadam baahidaada ha u sheegin baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadanka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bugtaan badanba waa la isku nacaa taasay bini aadan haddaad tidhahdid keen uku nici ilaahay haddaad keen ola weyda marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhigano ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka miduu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra ina yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin aadoo raashin kariyo u gee baa lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii u yimid wuxuu soo galay ina yaroo shaab oo ducaysanayo shabaabkeena iyo shabaabkaas ku eg cuntadii buu u dhigay buu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysuu ku yaallaa waddadaas saa u soo mar sidaa u soo mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu beddelay wuxuu yidhi maad i taqaannay horay may maan ku aqaannay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'imaan adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaaddii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo janaasada iyo aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu yidhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakr sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo siyaartay miskiinna soo quudiyo wax soo siiyey daarulcamal bay joogeen ay garteen daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeeli galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibnuljawsi raximahullah uu leeyahy sifatu safwa qisa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabudoo reer maka ayuu ahaa habeennada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu yidhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaane adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono markuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tegey
magaaladii kuufuu yimiday dadkiibuu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimiday iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa 800 maan u malayn kitaabka inaan ka arko subaxdoo keliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhowaado ariga soo dhex galay salaaddii bay khafiifisay kolka salaaddii ka baxday ayay ku tidhi yabna ziyaad yabna zayd bay ku tidhi ballankeennu halkan mahayna oo aakhire iska soco bay ku tidhi wuu la yaabay magaciisiina way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay adhigaygiina u eegaayo waraabihiibaa iska dhex socdo oo la cabbayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu idhi ina zaydinaan ahay oon arrinkaa u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nebiga maa dillowday ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadanku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalamul arwaax baan wada joogaynay labadii ruuxee halka sare isku taqaanay adduunkana waa isgarano waa is-urino waa isfahmi hadday halkaa isku soo diiddayna adduunyadana waa isdiidiye arwaaxdiina istaqaanee salaama bay ka tidhi ballankeenuna waa aakhiro su'aal kale ma ku weydiiyaa weydii bay ku tidhi hadalkana soo gaabi adhigaagan waraabuhu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buuhi bal ii sheeg waxay tidhi ha la yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xidhiirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay labada xidhiirkii ka dhexeeyana ilaahay baa hagaajiyey tidhi innaku maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysannaa diinta manfacaddeedu inay aakhiro un taalla bas waddanka yaman bari annakoo joognood ijtimaaciya ka qayb galayna ayaa gaadhi lankurusaraanna hor maray xagga dambe waxaa ku qornaa addunya bilmaal waalaakhiratu bilacmaal adduunyada lacag baa kuu haysa aakhiradana acmaal baa kuu haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagta haddaad dooni aakhiradu inay ku hagaagta haddaad dooni labada daarood inay ku hagaagaan haddaad dooni waxaa kuu haya camalka wanaagsan baa kuu haya adigii iyo ilaahay xidhiirkii niga dhexeeya un hagaaji bas waata maanta bini aadamka caalamku ay garan laayihiin oo cilmigaan fahmi laanahay man axabba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aarihi falyasil raximahu buu rasuulku yidhi ninka jecel in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhya buu rasuulku yidhi rasiqa in laynoo waasiciyo ma doonayno bal ninkii rasiqa in loo waasiciyo doonayo gacanta taag laakiin xaggee ka doondoonnaa iminka innaku meel kale raximkaaga xidhiidhi aabbaha hooyada adeerka abtiga habar yarta eddada ilma adeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacag dadka laguma xidhiidhiyo lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti alwajhi wa xusni alkhuluq buu nebigu yidhi dadka lacag laguma deeqa buu nebigu yidhi lacag dadka lacag kuma wada gaadhi kartaan dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo khilaafadii cumar bnu khadaab radia allaahu canhu baytalmaalkii bay lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeella dadka u qaybiyey buuhi lacagta waa la qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaadda jimce dhallinyarta iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buuhi cumar cabdiraxmaan bin cawfa hadloo yidhi yaa amiira almu'miniin baytalmaalka wixii lacag ku jiray haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan gaashaan ka dhigannaa oo iskaga difaacnaa buu ka yidhi
markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shaydaan baa ku hadlayay buuhi maanta laqananiya allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye balaayadiiyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi aan u diyaarsannay maya nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi waa maxay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso balaaya noo iman maysa buu ka yidhi waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib sayidina cumar faaruuq aayaddaasuu akhriyey aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaa ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa arsaaqaddana meelaa ka filin baa ilaahay naga siinaya